iyadoo uu sii xumaanayo xiriirkii u dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta waxayna arrintaasi keentay in safiirkii dowladda Imaaraadka u fadhiyay magaalada Muqdisho si degdeg ah looga yeedho dalkiisa hooyo uuna ku laabta halkaasi. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka carootay go'aan ay dowladda federaalka Soomaaliya uga soo horjeedsatay in saldhig military ay ka dhigato garoonka diyaaradaha magaalada Berbera waxayna horay saldhiggaasi ugala heshiisay maamulka Somaliland. madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo dhowaan booqasho ku tagay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa la sheegay in madaxda dalkaasi kala hadlay sidii loo faragelin lahaa qorshaha Imaaraadka ku doonayo in saldhig military uga dhisto garoonka diyaaradaha ee Berbera. haddaba dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay si degdeg ah ugu yeertay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Danjire Maxamed Cusmaan Al-Xamaadi waxa uuna safiirku ku laabtay magaalada Abu Dhabi. amarka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in safiirku ugu laabtay dalkiisa si uu warbixin u siiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka. dowladda cusub ee Soomaaliya ayaa u muuqata mid aan raalli ka ahayn qorshaha ay dowladda Imaaraadka Carabtu saldhig uga dhigsanayso magaalada Berbera waxayna madaxda dowladdu sheegeen in Somaliland ay tahay dhul Soomaaliya ka mid ah. dowladda Imaaraadka ayaa heshiis kula gashay maamulka Somaliland inay saldhig ciidan ka dhigtaan garoonka diyaaradaha magaalada Berbera waxaana heshiiskaasi Somaliland ku heshay dhaqaale aad u fara badan. ugu dambeyntiina shaqaalihii ka shaqaynayay safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho ayaa loo diiday in la siiyo mushaharaadkoodii iyadoo laga xirtay albaabka safaaradda xilli loo isticmaalay awood iyo handadaad. qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho ayaa maanta la hadlay saxaafadda iyagoo u sheegay in markii hore si lama filaan ah loogu diiday in la siiyo mushaharaadkii ay xaqa u lahaayeen oo ay halkaasi ka doonteen waxayna sheegeen in lagu wargeliyay inay safaaradda isaga tagaan markay diideenna waxaa awood ciidan u isticmaalay ilaaladii maxalliga ahayd ee safaaradda.